السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا سلاماتين قصوا هذا مركري برنامج امتحانها ee talsiinta ardayda oo aalaab aan ku soo qaadan jirnay barnaamijyo ardayda faa'iido u leh isla markaana qof kasta oo arday ah wax badan oo ka faa'iidi karo. intaan bilaabin muuqaalka haddii aad channelka cusub tahay fadlan subscribe saar si aad ula socoto muuqaalada dambe aan soo dhigno. waad mahadsantahay ku soo dhawow muuqaalka. barnaamijkan intiisa badan waxaan ku soo qaadan doonaa 4 qodob oo ardayga ka saacidaya inuu imtixaanka meel sare keeno. 4 qodob ayaa waxay yihiin 4 qodob oo qofku xataa sameyn karo haddii imtixaanka waqti yar gudaheed ay ka harsan yihiin. insha Allah waxaan rajeynayaa in 4 qodob aad ka faa'iidid isla markaana imtixaankaaga meel sare keentid. qodobka koowaad, imtixaanka hore aad gashay diyaari. waxaan ula jeedaa in imtixaan qofka haddii uu dhigto jaamacad ama iskool وخاصة إنه امتحان قلي امتحانات أرضية قار ورقده ويسكتوران أو إن الفائدة لهن أي أوقبان لكنسه ورقده وحليهن فائدة أو تربان صوته أو حكاية سعيدين إن برتيد قابل امتحانك ومعلنك أوقعده ستوك على برتيد إن عشان قار إن امتحانك لو كانوا هدي لك سعد ورقده إسكتوليد وحليها وإن امتحانك كل صوص عضه سؤال امتحانك ورقوش لو كانوا إسمر كان أتقرويد. qodobka labaad, badin nashada. waxaan u jeedaa inaad badiso nashada. tusaale waxaad rabtaa inaad imtixaanka diyaarisid galabkii. haddii aad galabkii inta ka dhiman aad buuq isku fadhiyo ama maskaxdaadu ay buuqsan tahay kadibna aad isdhaahdo imtixaan diyaari, way adag tahay inaad imtixaanka xifdisid sababtoo ah maskaxdaadu way isku buuqsan tahay. marka waxaa laga rabaa in inta imtixaanka ka harsan waqtiga aad diyaari lahayd aad nasashid ama aad hurdid ama aad seexatid. taas waxay kaa saacidaysaa in maskaxdaada oo fresh ah aad imtixaanka diyaarsid isla markaana aad si fiican aad ku xifdisid. qodobka saddexaad, cab biyo badan. waxaan u jeedaa cab biyo badan inaad biyo badan aad cabtid sababtoo ah biyuhu waxay ka qayb qaataan in ardaygu wax badan xifdiyo. tusaale waxaad samayn kartaa inaad koob biyo ah agtaada soo dhigtid xilliga aad imtixaanka diyaarinaysid isla markaana markii aad isdhaahdo waa u baahan tahay aad cabtid. qodobka afraad, cun cuntooyinka fiitamiinka leh. cuntooyinka fiitamiinka dhammaantiin waa naqaanaa sida tusaale kalluunka, tufaaxa, cambaha, timirta iyo waxyaalahaas oo dhan ayaa cuni kartaa. waxay kaa saacidayaan ayagana in imtixaanka ay ka qayb qaataan in maskaxdaadu ay wax badan xifdiso. sidoo kale xilliga imtixaanka aad galaysid waxaa lama huraan inaad qaatid shukulaato nooca madowga ah. taasna waxaa la sheegay inay ka qayb qaadato in ardayga uu xilliga imtixaanka galayo ay maskaxdiisu soo xasuusato waxyaaba ay soo diyaarinaysay. muuqaalkan maanta inta ay ku yahay waxaa barnaamijkan la socodsiinayay anigoo ah Cabdirashiid Maxamed Ismaan. intaan ku kulmna kulanti daba xisle. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi